soo jeediyeen ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed. Su'aalihii ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ay baarlamaanka u soo jeediyeen ayaa waxaa ka mid ah sicir bararka iyo weliba qiimo kororka, farqiga u dhexeeya qulqulka suuqa iyo sicir bararka, su'aalo la xiriira xaaladaha waqti xaadirka ee dalkan Itoobiya, xaaladda mashruuca biyo-xireenka Abaay, shaqo la'aanta iyo weliba kuwo kaloo aad fara badan. Ka hor inta uuna ra'iisul wasaaruhu ka jawaabin su'aalihii kala duwanaa ay u soo jeediyeen xubnaha golaha wakiilada shacabka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa hal daqiiqo waxaa loo istaagay ciidanka difaaca qaranka dalkan Itoobiya. Kadib ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay caqabadooyinkii iyo weliba dhibaatooyinkii lala soo kulmay sanadihii isbedel oo ay ka mid ahaayeen caabuqa safmarka ee COVID-19, isku dhacyadii ka jiray meelo kala duwan oo dalkan Itoobiya oo ay ku barakaceen muwaadiniin fara badan, sicir bararka iyo weliba guud ahaanba dhibaatooyinkii dhinaca dhaqaale ee isbedelka ka hor ka jiray dalkan Itoobiya. ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed mar uu ka hadlayay dhinaca dhaqaalaha ayaa waxa uu sheegay in 3 sano ee lasoo dhaafay dib u habeenno iyo weliba shaqooyin badan oo laga qabtay qaybta dhaqaalaha, gaar ahaan qaybta wax soo saarka ee dalka ay kor u kacday qaybta wax soo saarada loo dhoofiyo 18%. ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu tilmaamay in agabyada kala duwan ee wax soo saarkooda iyo weliba dhoofintooda kor loo qaaday ay ka mid yihiin bunka, qaybaha kala duwan ee khudaarta, macdanta iyo weliba kuwa kaloo badan. ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in 3 sano ee wax soo saarka guud ee dalkan Itoobiya uu ahaa mid kor u kacay. ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay in ay ahaayeen marka la isku miisaamo kuwo aad u kala fog wax soo saarada la dhoofiyo iyo weliba kuwa la soo degsado. Waxa uu sheegay in farqiga u dhexeeya markii hore uu ahaa 10.6%, balse haatan laga dhigay 9.3%. guud ahaan qaybta wax dhoofinta dhaqaalaha laga helay ayaa waxa ay gaaraysaa, ayuu yidhi ra'iisul wasaaruhu, 3.5 bilyan oo dollarka Maraykanka. ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed maruu ka hadlayay qaybta badeecadaha kala duwan ee dibadda laga soo degsado ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in iyaduna ay kor u kacday 0.6%. ra'iisul wasaaruhu maruu ka hadlayay guud ahaanba kor u qaadista qaybta maaliyadda ayaa sidoo kale waxa uu rabaabay in isbedelka ka hor dalkan Itoobiya oo gaaray xaddiga ugu sarreeya ee qaanta lacageed, sidoo kalena dalku uu gaaray ayaa howlo badan oo la qabtay oo ka mid yihiin in wadahadalo lala yeesho wadamada deymaha bixiyo, in la bixiyo deymaha qaar, in aanan la qaadanin wax deyn ah, iyo weliba shaqooyin kale oo fara badan hoos loo dhigay guud ahaanba deymihii ama qaantii lagu lahaa dalkan Itoobiya. Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya mar uu ka hadlayay maalgashiga dibadda ayaa waxa uu sheegay in maalgashiga dibaddu uu yahay mid 20% kor u kacay. ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed mar uu ka hadlayay isbarbardhigga iyo weliba farqiga u dhexeeya kaydka iyo weliba maalgashiga ayaa waxa uu sheegay in 2 sano ka hor uu ahaa 14.5%, balse hadda uu yahay 9.6%. warbixinta ra'iisul wasaaraha ayaa waxa maruu ka hadlayay xalka iyo weliba qaabka loo xalinayo sicir bar qiimo kororka ba'an ee ka jira dalkan Itoobiya ayaa waxa uu sheegay in lagu xallin karo dhaqaajinta horumarka, kor u qaadista nolosha shacabka, kor u qaadista wax soo iyo weliba in si gaara loo taageero badeecadaha kala duwan ee iyagu sababa qiimo kororka. ra'iisul wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in sababta ugu weyn ee keentay sicir bararka ay tahay isku dheelitir la'aanta waxa loo baahan yahay iyo weliba waxa la helayo. haddii marba marka ka dambeysa tirada dadku ay kor u kacdo balse wax soo saarka dalku uun kordhin, waxaa imaanaya qiimo koror iyo weliba sicir barar. si guud warbixinta dhinaca dhaqaalaha ee dalkan Itoobiya ee ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed uu maanta u soo jeediyay golaha wakiilada shacabka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ayaa waxa ay mid si guud cabirayso in uu kor u kacay dhaqaalaha dalkan Itoobiya iyada oo lagu jiro xaalada cakiran oo ka mid yahay caabuqa safmarka ee COVID-19 iyo weliba dhibaatooyin kale oo aad u fara badan. balse qodobada ra'iisul wasaaraha ayaa waxa ay cabiraysay in caqabada ugu weyn ee haysata dhaqaalaha dalkan Itoobiya uu yahay qiimo kororka iyo weliba sicir bararka, waxaana uu sheegay in haatan dowladdu ay u diyaar garowday iyada oo la darsayo ilaha sababa sicir bararka iyo weliba qiimo kororka wax laga qaban doono. ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya maruu ka hadlayay xaaladda deegaankaasi Tigray ayaa waxa uu sheegay in ujeedada iyo weliba go'aanka ka dowladda federaalka uu yahay in la horumariyo nabadda iyo weliba horumarka, waxaana uu sheegay in ciidanka difaaca qaranka dalkan Itoobiya ka soo baxaan deegaankaasi Tigray ujeedada ugu weyn ay tahay in wax walba laga horumarinayo nabadda iyo weliba horumarinta dalka. waxa uu sheegay ka soo bixitaanka
ciidanka difaaca qaranka ee deegaankaasi Tigray in aysan ahayn wax maalmo uun ku kooban kasoo bixitaanka ciidanku ay ahayd mid qorshaysan oo muddo bil ah socotay. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in wararka been abuurka ee la isla dhex qaadayo aysan waxba ka jirin ciidankina wareegga afraad ama qaybta ugu dambeysay ee ciidanka difaaca qaranka ee dalkan Itoobiya ay ahaayeen kuwii ka soo baxay magaalada Maqale, balse kooxda argagax ee TPLF ayaa markii ciidanku ay ka baxeen magaalada Maqale waxa ay magaaladaasi soo galeen 2 maalin kadib. Guud ahaan xaaladda deegaanka Tigray iyo weliba ujeedada xabad joojinta halka dhinac kasoo bixitaanka ciidanka difaaca qaranka dalkan Itoobiya ay kasoo baxeen deegaankaasi Tigray ayaa kaliya ujeedadu waxa ay ahayd sidii shacabka deegaankaasi Tigray ay waqti roobaadkan uga faa'iideysan lahaayeen tabcashada dhinaca beeraha iyo weliba guud ahaanba dardargelinta howlaha gurmadka gargaarka bini'aadanimo ee deegaankaasi Tigray. Ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, maruu ka hadlayay culeysyada iyo weliba buunbuuninta ay abuurayaan wadamada dibadda iyo weliba warbaahintoodu aysan ahayn mid ka turjumaysa xaqiiqada. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu sheegay in horumarka iyo weliba guud ahaanba barwaaqada Itoobiya uu yahay mid aan la joojin karin xaqiijintiisa. Ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, maruu ka hadlayay dhismaha mashruuca biyo xireenka dib u curashada dalkan Itoobiya ee Abyei ayaa waxa uu sheegay in inta badan wadamada dunida ay garwaaqsadeen mowqifka iyo weliba hadafka Itoobiya ee ah in biyaha webiga Abyei looga faa'iideysto si cadaalada. Dabayaaqadii ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed, ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya, ayaa waxa uu golaha wakiilada shacabka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya in Itoobiya ay hore u soconayso barwaaqadeedana la xaqiijinayo Itoobiyana uu garab taagan yahay Ilaahay.